رمضان كريم waxaynu doonaynaa inaan ka hadalno nafaqada saxda uu jirku u baahan yahay khaasatan bisha Ramadaan. Jirku wuxuu u baahan yahay sideedaba wuxuu u baahan yahay nafaqo dhameystiran. Nafaqada saxda ah ee dhameystiran waxa loo qaybiyaa 6 qaybood. Marka qofku hadduu sooman yahay iyo haddii aanu soomaneynba wuu u baahan yahay khaasatan marka la sooman yahay ee muddo ku dhow 12 saacadood ama in ka badanba uu sooman yahayna waa inuu awood saaraa 6 qaybood oo u kala baxaya in borotiinkii uu helo iyo inuu carbohydrate-kii uu helo inuu helo dabcan fatskii vitaminskii iyo mineralskii iyo biyihii. Haddaba borotiinska xagga laga helaa ayaa su'aala. Borotiinka waxaa laga helaa hilibka cad iyo hilibka cas, waxaana ka caafimaad badan hilibka cad oo u kala baxa kalluunka iyo digaaga. Sidoo kale waxaa laga helayaa caanihii, waxaa kaloo laga helayaa midhihii. Midhaha marka leenahay maxay ka kooban yihiin? Way ballaaran yihiin midhuhu, waxay u kala baxayaan fuulkii, misirtii noocyadeedii kala duwaneed, waxaa hoos imanaya sidoo kale lowsyadii kala duwanaa. Dhammaan intaasoo dhan waxay ka mid yihiin sources of proteinska waxaa loo yaqaan ama meelaha borotiinka laga helo. Carbohydrate-kan u imanina, carbohydrate-ka waxaa laga helaa sida dadkeenu badanaa wada yaqaana waa bariiska iyo baastada iyo roodhida oo soo raacda. Laakiin haddana iyaga waxaa laga helayaa sidoo kale midhihii oo ah waxyaabaha baal kale oo dhan ayaa laga helaya carbohydrate-ka caafimaadka u leh qofka. Haddaba waxaa kale oo aynu helaynaa vitaminskii oo laga helayo khudaartii iyo vegetableski. Sidoo kale waxaa laga helayaa dhammaan fruitskii kala duwanaa ayaa iyaguna laga helayaa. Sidoo kale waxaa laga helayaa saladkii oo isaguna aad ugu muhiim ah caafimaadka qofka. Waxaa kaloo aynu u imanina biyuhu oo isaguna 70% jirku u baahan yahay in la siiyo. Waxyaabahan kula dardaarmayno dadka bisha Ramadaan waxa weeyaan kow cabitaanka biyaha. Biyaha cabitaankoodu waxay jirku muhiim ugu yihiin maadaama uu qofku u sooman yahay muddo dheer wuxuu u baahan yahay ugu yaraan 8 koob oo biyo inuu qofku cabo. Min afurka ilaa suxuurta ayaa 8 koob ee biyo cabitaankooda loo qaybin doonaa. Waxa kale oo qofku u baahanayaa in uu badsado waxyaabaha biyuhu ku badan yihiin sida khudaarta biyuhu ku badan yihiin. Waxaa kamid ah khudaarta biyuhu ku badan yihiin khiyaarkiiba kamid ah, waxaa kamid ah xabxabkii, waxaa kamid ah tamaandhadii, waxaa kamid ah saladkii. Waxa kale oo aanu kula dardaarmaynaa dadka sooman in ay iska yareeyaan cuntooyinka caafimaadka u daran ee caloosha waxyeelaya. Waxaa ka koow ah waxyaabaha saliidda leh ee la shiilo. Haddii aad ka maarsami weydid waa inaad isticmaashaa iyagoo aad ofinka ama foornada ku bedelanaysid. Waxaa kale oo dadka kala dardaarmaynaa isticmaalka milixda. Milixda isticmaalkeeda faraha badan leh wuxuu keenaa haraad, sidoo kalena wuxuu dhibaatooyin u geystaa kilyaha iyo shaqada wadnaha. Waxaan kale oo kula dardaarmaynaa cabitaanka biyaha qabow in ay iska yareeyaan ama ay iska ilaaliyaan waqtiyada la sooman yahay maadaama uu jirku uu calooshiisu ay xidhxidhnayd uu u baahan yahay in uu wax diiran ku horeysiiyo. Waqtiga afurka ka dambeeya qofku cabi karaya waxyaabo qabow, laakiin waqtiga waxaynu ka hadlaynaa marka la afurayo muxuu qofku u baahan yahay? Wuxuu u baahan yahay cabitaan diiran inuu isticmaalo. Waxaa kamid ah cabitaanada diiran uu qofku isticmaali karayo shurbadii oo iyaduna ka kooban khudaartii iyo biyihii oo laga sameynayo oo labadiiba faa'iidadii uu qofku ka helayo. Waxaan kula dardaarmaynaa isticmaalka khudaarta kala duwan haddii fruits tahay haddii vegetable tahay oo caafimaadka iyo shaqada caloosha ka qayb qaadata. Sidaan wada ogsoonahay waqtiga lagu jiro soonka waxaa ku yimaada dadka calool istaag. Calool istaagaas waxaa keena biyo yaraanta iyo khudaarta iyo fruitska oo dadku aad u isticmaalin. Waxaa ka koowa afurka ay tahay qofku inuu isticmaalo sidoo nabigeena calayhi salaatu wasalaam inoo sheegay isticmaalka timirta. Haddaba xigmadda ku jirta isticmaalka timirtu maxay tahay? Jirku markuu uu soo soomanaa muddo ka badan 12 saacadood waxaa hoos u dhaca macaanka ama glucose jirkiisa. Marka 3 xabo oo timir aad ku afurtid waxaa kor u soo kacaya macaanka jirkaaga. Marka waxaa laga maarmaan ah in aad ku horeysid isticmaalka timirta si uu macaanka jirkaaga u baahnaa uu kor ugu soo kaco. Waxaan kaloo dadka kula dardaarmaynaa in ay yareeyaan ama iska xakameeyaan isticmaalka maadooyinka ay ku badan yihiin kaafinta, shaaha, qaxwaha iyo sidoo kale in ay iska yareeyaan isticmaalka waxyaabaha soodhaha leh kuwaas oo dhammaantoodba kaadida badiya. Kaadida haddii ay badatana waxaa qofka ku imanaya in ay jirkiisu uu qaleel dareemo waqtiyada la sooman yahay. Marka in la iska xakameeyo oo la iska yareeyo waxay ku dhib yareynaysaa waqtiga aad sooman tahay.
waxa kale oo dadka kula dardaarmayna in cuntada calaliskeeda waqti la siiyo oo muddo fara badan uu qofku cuntada si fiican iskaga calaliyo waayo cuntada la calaliya caloosha ayay u fududeysaa shaqada ay qaban lahayd oo ah ridqii ay ridqaysay cuntada sidoo kale cuntada oo si degan loo calaliya waxa ay caloosha u saacidaa in ay yareyso acid ay soo deyn lahayd si ay cuntadan u burburiso marka waxay ka yareynaysaa cilladaha kugu imanaya ee ay ka mid yihiin laabjeexa iyo gaasta sideedaba soonku waa caafimaad laakiin haddii aanu qofku nafaqo dhammaystiran aanu qaadanin waqtiga uu sooman yahay waxay dhibaato ama khatar gelin kartaa caafimaadka qofka haddaba wuu u sii daran yahay soonku wuxuu u sii daran yahay dadka la nool xanuunada loo yaqaano chronic ama xanuunada muddada badan lana nool yahay waa dadka qaba macaanka dhiigkarka beer subaga iyo wadna xanuunka dadkaasi waa in cid kasta oo xanuunadaas la nool ay u feejignaadaan afurka ay cunayaan oo ay ku dadaalaan inay cunaan cunto dhammaystiran oo dheelitiran cuntooyinkaas oo ka kooban 6 shay hore usoo sheegnay ayay u baahan yihiin inay qaataan si aan caafimaadkoogu waxba iska dhimin suxuurtu waxay muhiim u tahay qofka sooman sababtoo ah waxay awood ama energy siisaa qofka in waqtiyada uu sooman yahay suxuurta nabiga inoo sheegay calayhi salaatu wasalaam wuxuu inoo sheegay in suxuurtu ku jirto barako marka qofku inuu kaco xataa haddaan wax badan cuni kareen inuu timir iyo koob biyo u cabo taas waxay ka saacidaysaa calooshii shaqadii ay qaban lahayd maalinta ee soonku sugayo oo dhan dadka ka faa'iideysanaya bisha barakeysan ee soonka uga faa'iideysanaya in ay isku dhoobaan fursad bay u tahay in ay ka faa'iideystaan sababtoo ah soonkaas ay calooshooda wuxuu ku gubiyaa fatska faraha badan ee jirka ku jira marka waxaan kula talinaynaa in ay isticmaalaan waxyaabaha ay ku jiraan qudaartu ay ku badan yihiin oo iskana xakameeyaan waxyaabaha uu dufanku ku badan yahay sida sambuuska iyo quraaca iyo hilibka cas waxaan kaloo kula talinaynaa cabitaanka biyaha kaas oo ka qayb qaata dheefshiidka caloosha dadka isnaaxinaya iyadoo sidoo kale fursad bay u tahay inay ka faa'iideystaan bisha barakeysan ee Ramadaan iyaga oo ku dadaalaya isticmaalka borotiinkii aan hore usoo sheegnay waxay qaadanayaan borotiinkii cas waxay kaloo isticmaali karayaan borotiinada kala duwan ee midhihii waxay isticmaali karayaan caanaha iyo waxyaabaha ka dheegmo oo dhan waxay isticmaali karayaan beedkii oo isaguna ay ka helayaan miisaan fara badan sidoo kale waxay isticmaalayaan khudaarta kala duwan cabitaanada fruitska juice laga sameynayo dhammaan way ka faa'iideysan karayaan fursadan in ay miisaankii doonayaan kor u qaadaan talada guud ee aan siinayno daawadayaashana daawanaya waxay tahay in ay ku dadaalaan in ay nafaqo saxa oo 6dii aan ka soo sheekeynay ka kooban in ay isticmaalaan sidoo kalena in la xakameeyo isticmaalka waxyaabaha saliidda leh oo ay ka yihiin sambuuska iyo quraaca cabitaanka biyaha iyo in milixda la yareysto